maxaad ka taqaanaa dadka caanka ah ee u dhashay Mareykanka sida ay u kala hanti badnaayeen sanadkii tagay? waxaa jira dad aad u badan oo gudaha dalkaasi Mareykanka ah iyo guud ahaan dunidaba ku leh magac iyo maamuus, balse ku kala horeeya dhinaca hantida iyo maalka. Haddaba sanadkii la soo dhaafay dadka caanka ah ee ku nool dalkaasi Mareykanka ayaa waxa ay u kala hanti badnaayeen sida tan: George Lucas 5.4 bilyan, Stephen Spielberg 3.7 bilyan, Oprah Winfrey 2.8 bilyan, Michael Jordan 1.7 bilyan, Jay-Z 1.9 bilyan, Kylie Jenner 1.9 bilyan, Sean Diddy Combs 1.82 bilyan, Tiger Woods 1.8 bilyan. بلسما يمحو